akhyaartii dhammaan ummadda Soomaaliyeed ka joogtiin aad baa idin salaamaya xilligan tihiin ayaa idinku salaamay xawagaana salaadana lagu jiraa ma sha Allah marka waxaa ilaa caaw waxaa martii ah asxaabteeda ugu qaaliga ah boqortooy media iyo baaqyar media ma sha Allah asxaabta waxaa ilaa yahay wariyaha qaaliga maanta waxbuu idin wadaa insha Allah wax kale dimado asxaabta amrana ka taa waxaan leeyahay meel walba ku sugantiin salaamullaahi calaykum nabadiina xariista ee beexa idin soo gaarto insha Allah ta'ala intii habeen u taan habeen wanaagsan maalinta maalin wanaagsan waa abwaan baaqo oo aad wada garanaysaan inta aan aqoonina barasho wanaagsan asxaabta amrana ka taa kulli inay garanaysaan umaleynaya waxaan la joogto Sihaam oo ah boqortooy media Sihaam waxaan leenahay soo dhawaad walaashay asxaabta maxaa u sheegaysaa dhammaan asxaabta amrana ka taa official waxaan leeyahay mahad iyo sharaf iyo karaamo korkiina ha ahaato waxaan ugu Ramadan sheekada leegta komediga waa noo dhiirigelin waxaan waqti soo wadno idin soo fadhiisanay waa in aad nagarab istaagtaan intaas kadib amran ayaa barnaamij noo wada oo ah baafa xariirka okay waxaan rabnaa inaan wax ka weydiino ama aan wax idinka ogeysiino idinkana aad sidaad ogtihiin bay wax badan oo idinka qarsanba ay daha inay ka qaadaan caawa amarna ka taawaato hay amran soo soo amarna ka taa caaw ku noo yahay hay insha Allah barnaamijka abwaankayga waa kana amran waxaan rabaa inaan wax ka warsado amran hawshan marka bilaabaysay cid kugu dhiirigelisay meesha aad ka bilowday iyo maanta meesha aad ka taagan tahay inaad dadka u qiimeyso aniga maanta hawshan waxaa dhiirigeliyay ilka casalo naxariisto abdi maxamed ilka case Allah naxariisto hadda ka hor waxaa jirtay amran waa kuma amran waa aniga amran ka tahay hor joogta aktaradiina aniga waxay ugu aragteen waa gaaban tahay bis loo dul qaato gaaban farsamo ilaahay leeyahay ma sha Allah ma gaaban ceebta kantan ana la weydiiyay amran ka taa waa kuma amran ka taa waxa ku baratay isha TV Universal waxa ugu baratay jilinka waxa ugu baratay Soomaaliyeed inaan ka qoslaysiiyay ee barteen waxaana maanta heerkan aan taaganahay magaca aan leeyahay ilaahay ku soo ana ku dadaalay waxaana garab ugu siiyay ilka case walaalihii isla soo shaqeeyay Allah rahmaan rahimin abdi maxamed ilka case waad garanaysaan may waad garanaysaan waa sheekadii lacala ninkooday oo Nuur Ismaajeeta la jirayay iyo sheekada Ali Hiiraan dhamaantood horta way dhinteen Marshaale Abdi Jacaf oo kuku waxaan leenahay Allah wada naxariisto dad wanaagsan way u badnaayeen Abdi Muriid dheer ajakis hay'adaha sala soo shaqeeyay ilaahay maanta anaga ku nool anagana biriyan bixina isku waqti bixmeena hadii Allah uu daliyo waxa leeyahay Allah noo kala dheereeyo maalintaas inaad noo soo duceysaan ayaan jecelnahay hadii Allah uu daliyo raali ka noqdo gafkeeni geerideen ilaahay ma kulmiyo barnaamijka amrna ka taa waa kuma amrna ka taa waxa waaye jiraa Soomaaliyeed aniga waxa fan ku soo biiray 2019 bishii koowaad fan ku soo biiray aniga waxaan joogay waxaan ku soo koray magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Soobe Bulufebey aniga waxaan ahay iyo beesha ka soo gala fanka ee meesha ilka cas iga soo qabtay aqoon ma u leedahay markaan meesha ka soo qabtada laga rabaa meesha oo iga keenay bulshada la hadlaya marka waxa anaga xataa ma naqaan idinka ha aniga ku noloshay ma sha Allah waxa ahay sidii dadweynaha hadii waxa la yiraahdo hooyo imato hooyo agoon laga noqdaa dadka baarkino dadka qaar waaye dadka inta xun waxay u marayaan gabadha markay inay xuntahay way xuntahay gabar hooyo imatay hooyo nool waxa la yiraahdo aad iyo aad u fiican tahay waayo hooyada ayaa baal ku wees مثلا adduunyada markii hooyaday dhimatay ayaa noqdo qof actor inaan noqdo caruurtii aan haystay caruurtii markaan haystay oo Allah naxariista amiin marka asxaabtayda waxaa jeclaaday inaan meelo wadaago hooyaday markii dhimatay aniga waxaan furtay maqaayadan lahaa shaqaysta sharaf leh shaqada ceebe maqaayada markaan lahaa guriga ku taalay intii taqaanay bulshadii halkaan ka salaamaya laamiraha meesha daadcade oo ku yaalo xasuusta ay tahay hadda ruuxaanti isbitaalka daadcade
inta ka sokaysa xasuusta ay geed ka sokeeyo 2009 kina tiri ها باش كنت هذا xilligaas beeshina ahaa ka war wax xanuunsanaani maxamuud zaahid mataqaan daktar liido ina cadda isbitaalkiisa joogi jiray ay daaweynaaye sideed bilood oo refetro iyo quraan weligii ay ugu dhicin TB mindhicrada ku soo gaas leenahay wallahi marka ninkaas diyadeedu galay laakiin Allah kariim marka geedka meeshaas geed ku yaalo dukaanka ku dhow aad cadda agtiisa aniga waxay tahay xasuus weyn laamigaas marka arkana waxyaalo badan aan soo xasuustaa wanaag iyo xumaanba marka waa kuma amarna ka taa waa qaybta kuwaad hadda marka waxaa waaye ilka case anoo shaah karinayo maqaad shaah ay furnay meel oo bashaasnimada arkay oo baraf ay furnay marka ilka case u helanay habarra oo ay ilka case walaashiga dhashay فاضل محمد أفرح عمرك قال الله نسي أمين أنا جمعة محمد الكعس أيديس بلو هذا رتسا أي في رهد قالوا من نقطة إيه نقطة ما شاء الله ما شاء الله طيب فاضل محمد أفرح على الأشياء الصغيرة صح أنا جمعة أفرح هاي دلي ما شاء الله في من برا ويعي مستحدة ما شاء الله لكن خفضوا مثلين يعني أمر جمعة أفرح على قبطان طرف كاس وحق الجري الشك شاه مقاعدة سايفرنت قف استفر فرمون ويبواها oo bulshada wax jirto marka ilka casa ay imaadeen marka aniga waxa jeclaa inaan noqdo mar oo ii sheeg actor Soomaali oo wax jilo actor inaan noqdo hadana waqtiga ay sii waayay alxamdulillah shukr bacaalamiin awlaada ilaahay siiyay waa iska dhalay ma sha Allah ilmahayga markii hooyada dhimatay ayaa waxaan bilaaway inaan fan ku soo noqdo ma life story-gaas okay ay bilaawatay inaan maqaayad furto habartii aan noolaa bilfay degan maqaayad inaan furto dadkii iska shaqaysto bakaaraha uruurin aan ka soo qaado marka sheekada way badan tahay haduu ilaahay yiraahdo marka qaybtan waa qaybta koowaad waxaa leeyahay asxaabay qof dib arkin ma raaxaystaa la yiri marka hooyada hadday dhimato wax walba arkaysa dunyadan ilaahay wajigiis un baa la arkin والله بين ilka cas waxaan arkay aan mararka qaar Allah naxariistay ilka cas ku dhawaa xasuusan kale marka waxaan arkay hadda ka hor waxaan arkay hiila amal marka hooyada waysi hooyo kale cunugteeda u helinaysa marka arag ma horta waxa laga agoontoobo fiiri amran ma arag waxa laga agoontoobo hooyo waay marka laftirjigu uu iska badan yahay adduunyada wax kasta lagu arkaa ilaahay wajigiis ayaa la arkeenay marka aniga fanka saas ku soo galay qaybtan waa qaybta koowaad qayb labaad jirto aad ka sheekay doono hadda ceeb ma aha taariikhdaada inaad ka sheekaysid aniga qofku ma aflaga deynaayo ma sha Allah qof waxba u muuqato qof aan ula dan leeyahay ma jirto laakiin waxa jeclaystay bulshada Soomaaliyeed asalkeyga inta aan ka imaaday qofka markuu yiraahdo waa shaqaysan jiray Soomaalida qaarkood ma sharaf way ku caynayaan sharaf amran sharaf ma sha Allah waa mahadsantahay ilaa hadana waxa jeclaa inaan shaqaysto hadoo oo dihin saas waay gacan islaamad kuma tashtaa ma sha Allah maanta daacay noqonaa aan ma ka xishoonayo ma ka xishoonayso waxa ku noolaanayso oo xalaal waay oo ilaahay oo raali ka yahay baahida waxa baahi sidar baqti inaa wax raadista darmaane inaa ilaahay wuxuu raali ka yahay raadis adiga waxa ka ma laamayo wiliga ma isbedelaysid barkee shaqadana ceeb ma buu wallahi dad badan shaqada lagu caayay waa arkay aniga marka jecel shuriyaako iga tahay marka dadka waxa kula dardaarmay qaybta koowaad waa qaybtan dadkan waxa kula dardaarmay inay shaqeystaan intay gacanta hoorsan lahaayeen ilka cas sheekadiisa idii waday dhaxaad ka soo galay ilka cas wuxuu u yimaaday dhowr mar raadiyay ilka casaha marka waxa dhaabro shaqaa rabaaye meelaha ma ay shaqaysiisid oo saan amal marka tii ogaay moogta sax ana fursad ku siiyay oo sheekada ana u dhiibo sabeen bilooyin ka hor u dhiibo sheekada ugu horeysa marka la jishay waa sabaxay intaan aan gelin maqaayada marka inta gelinbo oo aan shidin maqaayad inaan shidin shaah karin amba maqaayadas aan furan ayaa ilka cas aan dhihi jiray waxa rabaa tii ilka cas ugu keenay bulshada saas ugu baratay waa dadkan way ku jeclaadeen markay ku arkeen runaan qaybta koowaad ma sha Allah meesha marka ayagta waa idin soo socotaa هاي هل إلى محك إلى هذا محك إلى قبل أسمع محك درنت أنا شو بدأ محك درنت مليون مركز أول مويد
gabdhaha kale uhelinayso yani alxamdulilah ortooyada way inoo tahay laakiin waa dareemi karaa qof caqli lahaa ahay xanuun badan qisadaas hadda aan bilowga ah baarkeedeeda dambe inay xanuun badan yihiin dareemi karaa marka don't worry anta wuxuu soo maray kamar insha allah maantana waxaan ka codsanayaa dhammaantiin janalkan haddii aad aragtaan videogan inaad boqolka badan waa istaahilaan maya waa amar waa istaahishaa anna waa sheergarayn doontaa anna waa sheergarayn doonaa insha allahu tacaala barnaamijkan meel fiican uu isku xiri doonaa wallaahi horta amarnay xanuunka kaligaa ma qabtid kow dheh horta wax laga agoontuubo waa hooyo ana hooyaday anoo nin weyn oo caruur ii joogtay iga dhimatay alxamdulilah alshukr rabbilcaalamiin laakiin waxaan dareemay xanuun badan xanuun badan weli adoo gabar waa iga sii daran wallaahi masama ani nin rag oo shaqaysto markaas bixin karaan ahaa qofka soo yar hooyadiis ka dhimatana wuu naga sii daran yahay hadda qof aan qadin adoo ilmo haysato weyn haday dhimatay marka hooyooyinkii waxaan leenahay hooyada oo nool iyo kuweena dhintaba ilaahu un wada naxariiso naxariis janno intii Soomaali oo fiirsanayso barnaamijkan oo hooyada dhimatana waxaan leenahay jannatul firdaws al-a'la Allah kiyo hooyadiin Allah u naxariisto hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan Allah u naxariisto inta nool iyo inta dhimataba marka barnaamijkan meel gaarsiiye insha Allah waxaan ka codsanayaa inay ii sheer gareysaan youtuber kasoo Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay ii sheer gareeyo share abu sameeyo oo share ab ii sameeysid hadda awoodid walaakiin yaa taa shar da ii sameeysid ana abaal kaaga heenayaa abaalayna miye qofkii haddii aad sheer gareysan ilaahay kugu abaal gudo naxariistiisa iyo nolol macaan Allah kugu haddii aad sheer gareyso barnaamijkan mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay heer amrana ka taa hala sheer gareey barnaamijka nabad diino